السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن السلام يا قيارة شرفت لما الكستو دنيا دعالة دي دافيها ذات كتشوكتان وغرينتي وقول الصلي يا حبيب كينا محمد صوبانهن صلى الله عليه وسلم عمري داري عبادة الصوبان إيه عافي مطقب أيان ندين رجينا مل كستو تكسوغنتين معايا برارك وارا وولاشين حاوتاك هالكادي قدي هنيسان أن إذن كلا صوها الله وابرتي عن يوتيوب كوكولانا هاتا لباتن sidaad horeyba ula socoteen maanta maasha Allah waxaan noo wadaa video aan jikada isaga nadiifinayno. Ramadaankii baa soo galay. Ramadaan hadduu soo galay waxa weeyaan in farxad lagu soo dhaweeyo, in nadiif lagu soo dhaweeyo, nadaafad iyo qurux, maadaama bisha Ramadaan ay tahay bil sanad hal bilna soo martay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. sidaas loo ognahay jikadu way iska xanfash badan tahay, baco, kombooyin, gisacado, waxyaabo wax ka dhamaadeen, waxyaabaan la isticmaalin, wax badan baa jikada ka buuxa san isla ognahayba. Marka insha Allah taala waa inaad markaad bil ama 2 bilood joogto aad jikada iska nadiifiso. wax badan oo aan loo baahnayn oo la isticmaalin baa ku jira. haddana waan bilaabaynaa. saa u jeedaan hadda waxaan ka guraynaa jikada wixii alaabaha oo marfashka saarnaa. marfashka ama marfashyada qaanadaha dhan wixii ku jira ayaan ka guraynaa oo ka saaraynaa, sababtoo ah wax baca ku xiran, wax biciye lagu soo gaday ku jira, wax kartoomo ku jira way buuxdaa. sidoo kalena saxanka ama kuukarka korkiisa iyo saxanka iyo intaan ayagana waxa weeyaan saasay alaabta u daadsan tahay. sida saaka looga quraacday weeyaan, canjeerada weelkii lagu qastay, koorti, saxamadii lagu cunay, wixii oo dhan baa isdhex daadsan. alaabta dhan waa wasaq, laakiin insha Allah haddaan hagaajinaynaa oon guda galaynaa oo alaabta marfashka ka guraynaa oo wax walba aan dhag ka dhigaynaa hadduu alla idminta kala gurno kala jafno. marka insha Allah taala na soo raaca. maalin ayaa jikada inta lagu kaco wax walba laga soo gura, jaf waxaadan u isticmaalayn, waxaadan u baahnayn oo dhan iska tuur, qashinka iska gee. way ku jaam garaynayaan, jikaday ka buuxinayaan, meelaad wax dhigataa dhow ma arkaysid, waad ku jahwareeraysaa. alaabta kale kaaga dhex qasmayn maanta dhan waxaad ku jiraysaa inaad wax raadiso ood goob gasho. laakiin markii aad intaad isticmaalayso bes soo reebato waa taqaanaa shay walba meesha uu yaalo. hadda qaanadihii waa eber, waa soo marinay, waan soo tirtiraynaa. marka kaloorin iyo shaamba ayaan ku shubtay, marada waa soo nadiifiyey. kuwana waxa la wixii gasacaha halkaanay isugu yimaadeen, alaabta gasacyadii ay ku jirtay ama caagadihii ay ku jireen xawaashiyada waa kala shaandhaynaya. marka wixii aanan rabin ama aan hadda isticmaalayn oo dhan qashinka isaga daraya. xawaashiyada bacaha ku jira gasacadahan ku shubaya, sababta bac uma baahni. wax allaala wixii xawaasho baca ku jira ama baakadihii lagu soo gaday ku jira ayagana caagadahaasaan ku wada gedinaya hadduu alla idmo. caagadaha wixii aan u baahnayn oo dhan oona markaan isticmaalayn oo waxba iigu jirin waa iska tuuraya. waxa dhan carrada dhan waa kala hufaya, waana kala nadiifinaya insha Allah taala. mar walba markaad ayaan joogto inaad sidaan camal samayso waa wax ku wanaagsan, sababtoo ah jikadaadu maalin walba mid jaamahay noqonaysa. waxaa soo caaga markay hadhow adoon isticmaalayn meesha kaaga buuxaan, markaad tiraahdo wax karsatid xawaashiyadii la soo baxday, haylkii la soo baxday, waxa dhan waad ku jahwareeraysaa oo isaga ka darmanayaan. maanta dhan caagba mar inaad soo qaado, fiiriso, celiso, soo qaado, boosku kaa qaldamay noqonaysaa. laakiin markii waxaad isticmaalayso bes ay ku haraan, waxaad garanaysaa shay walba meesha uu ku yaalo. marka insha Allah taala waan nadiifinaynaa, waa tirtiraynaa. caag walba waxaan ku shubaynaa wixii asaga loogu talagalay in lagu shubo markii aan nadiifino haddii Ilaahay idmo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. hadda waxaan furaayo aan ku shubanayo waa xawaashiyada qaybo kamid ah, waa huruudi kan caagii ay ka dhamaatay baan ku shubaya. waxyaabahaas bacaha ku jiro dhan haddii aad waxa bac u dayso xawaashka ood bac u dayso oo intaad ka isticmaasho afka ka xirto ama isagoo furan aad marfashka saarto ama qaanada, wuu daadanaya, carrada dhan way ka halaabaysaa, xawaashkuna wuu ka beer daroobaya oo ka halaabaya. oo waxay noqonaysaa adigii aan xawaashka si fiican u isticmaalin inuu ka dhamaado, aad haddana xawaash kale soo gado, qaanadaha dhan uu kaaga daato. sida hadda huruud oo kale jaalay leedahay, haddii qaanadaha kaaga daadato jaalay ka noqonayaan. marka mar walba markii aad soo gado waxa fiican inaad gasac ku shubto, ama caag ha ahaado ama dhalo ha ahaado, wax raba ha ahaadee, ama koomba ha ahaadee. wixii adiga markaas gasacyada aad wax ku shubato inaad ku shubtaa ku wanaagsan, si uu ma garanaysaa shay walba uu meel kuugu yeesho, jikadaaduna aysan u halaabin. marka saasan caagadaha ugu wada shushubaynaa, saasan u nadiifinaynaa oo wada tirtiraynaa kor iyo hoos.
اللهم صل على سيدنا محمد. marka asxaabtayda sharafta leh gabdhaha ayaan u soo dubay fiidiyogan gabdhuhu quseeya sababtoo ah raggu dee guriga kama shaqeeyaan. guriga ina rag kamaba shaqeeyaba, waxa shaqeynayo guriga shaqadiisa aad moodo in ay si gaar ah hooyo aabbo ugu dhaleen waa gabdhaha. raggu ayagu shaqo kuma leh, cunto loo diyaariyay bay u yimaadaan. waa wixii nalagu soo ababiyo nalagu soo tababaray in ragga cuntada loo diyaariyo miiska loo geeyo. uusa alaabta xataa uusa dhaqin. oo markii berigan yaryarayn manaag baa wiilku baa la dhihi jiray markuu jikada galayo, manaag baa wiilku. nin jika ku jiraba ceeb bayba ka tahayba dalkii iyo dadkeeniba. laakiin hadda xoogaa sidii hore in la dhaamo waxaad moodaa horey wax yar loo socdo oo dadka qaar soo ilbaxayaan. welina waa ay jirtaa hawshaas, wayna badan tahay, wayna buuxdaa. marka gabdhuhu anagu jikadan iskaga dhalanay, waa la dhalanay jikada anaga ee caloosha hooyan kala soo baxnay, ma fahanteen? marka waa inaan ka shaqaynaa. run ahaantii qof jiko la dhashay ma jiro, qof ay jikadu gaar u tahayna ma jiro. shaqadii hawsha dadka way ka wada dhaxaysaa. laakiin mas-uuliyaddaas gabdhahay si gaar u saaranta. gasacadaheena iyo alaabteena hadda waa kuwaan. wixii aan u baahnaayo dhan hadda waxa aan ku wada shubtay xawaashidii, cusbadii, sokortii budada ahayd, اللهم صل على محمد في حصدي هيلكي قرفه دغيره فلفشي wax kasta oo u baahnahay, sooskii oo aan ku darsanahay, suugada iyo waxyaabaha, caleentii shaah, kafeegi, naskafeegi asna kulli wax allaale wixii aan u baahnaa hadda halkan igu diyaarsan yihiin. waxyaabihii aan u baahnayn oo dhan waa iska daadiyay, qashinkan ku daray, saacadihii, bicihii, wixii oo dhan waa kala baangeeyay. laakiin wixii la isticmaalay oo dhan oo in la soo dhaweeyo u baahnaa ayaga intay diyaar ku wada yihiin. insha Allah tacaala haddana waxaan ku celinaynaa marfashkooda, ayaan dib ugu celinaynaa si ay mid walba booskiisa uu u helo ama meeshii aan ugu talagalnay aan u dhigno. haddii ilaahay idmo adigana gabaray ka faa'iideyso. rabadaan baa soo socda, waad soo mantahay, caruur baad haysaa ama waad shaqaynaysaa, ma goobi kartid, ma raadin kartid, ma gabgablayn kartid. iska kala huf alaabta, iska tuur qashinka, shay walba meel aad og tahay ood garanayso ood ka raadsan karto dhigo. kuwaasaa labaniyadihii adduunkii wixii aan rabadaanka maaragtay isticmaali lahay oo dhan halkaasaan ayaga kusoo wada diyaarsaday. waxaanan isticmaalayna waa anigaa daadiyey. marka insha allahu tacaala waan rajaynayaa gabdho badanna inay ka faa'iideysan doonaan. lagama waayo guri jaqaf iyo guntin iyo bariis bac lagu reebay iyo wax yaroo bac ku xiran iyo wax yaroo la reebay oo qaanad ku jira kama waayeysid. runtii waa wax iska caadiya oo ma garanaysaa jikada caadadeeda ah in meel wax ku xiran iyo guntin yaroo meel ku jirta iyo wax qayb ka daadatay aad aragto. waa wax iska caadi oo jikada waxyaabaha ay maaragtay dabeecadaha jikada ka mid tahay. laakiin markaad ayaan joogtaba inaad muf iska siiso waa wax wanaagsan. haddana ramadaan baaba soo dhawo, waa la daalanyahay, tabar iyo taag looma bahayaba. orod iyo socsocod iyo wax raadin iyo gabgableyso adoo maanta oo dhan soomanaayo dhegta kaa saarantahay. haddaad rabto shaqo ka timi, haddaad rabto caruur iskuul ka keentay, haddaad rabto qorax iyo kulayl maskaxda kaa gaawinayo, maanta oo dhan bacaad lugeynayo ayaad rabtaa inaad jiko gasho. hadda qaanada ayaan ku gurayna, aan ku celinayna insha allahu tacaala. qaanadaha ayadana waa soo nadiifiyey kor ilaa hoos ilaa maacuunta waxa dhan waan soo guray, waxa dhan waa nadiifiyey, waa dhaqay, waa tirtiray. macnaheedu maahan haddii aad maanta jikada dhaqdo oo jikada maanta aad kala hufto ood kala hagaajiso, macnaheedu maahan inay jikadaadu wasaq tahay, ma fahante? laakiin waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay in maalmaha qaarkood wax la update gareeyo. kartoon ama maxaa yiraahdaa joornaal ama bacaha caadiga oo jikooyinka hoos qaanadaha la saarto, hadba kii markaas adigu aad isticmaasho ayaad qaanada saaraysaa ood ka xijinaysaa. weelashan ama caagadahan wixii haddii wax ka daadaataan oo kale si aysan kaaga halayn meesha marfashka hoostiisa waxbaad ku goglaysaa. aniga hadda joornaal baan kusoo goglay. marka shay walba meeshii u lahaa waan dhigahayaa. alaabta waxaa fiican inaad u kala habayso si isku leeyihiin. waxyaabaha aad isticmaalayso oo adiga markaas daruuriga ah oo la isticmaalo, sokay baa la soo marsadaa, meel dhow baa la soo marsadaa oo la isu soo xijiyaa. waxyaabaha aan la isticmaalin oo mar dhifa loo baahdo shishay baa la iska mariyaa.
laakiin maalin walba waxa loo baahan yahay maalin walba la isticmaalayo maalin walba wax lagu karinaayo waa inaad subkay soo marsataa si aadan hadhow u jahwareerin u gabagabaynaysaa kaa qasban alaabtaada saasay soo marsanaysaa dhag intii isleh intii isku aadanba waad isku xijinaysaa saasaan laynka u gelinaysaa xawaashiyada caleenta kaylalka kafeega saasaad xijinaysaa bakinka iyo maxayrada carfisadiisa iyo nacnaca lagu daraayo buskudka waxyaabahaas sokorta budada fixisada waxyaabahaas oo dhan cusbada dhinacaas ayagana xijinaysaa oo layn baad xijinaysaa xawaashiyada bariiska ama digaaga ama maxayrada hilibka ayagana say isku leeyihiin qayb u yihiin qaybta bariiska dhinac xiji yacni si aadan ugu wareerin gees saas ugu kala xiji hadduu ilaahay ma rajaynaa inaad si fiican uga faa'iideysan doontaan waxa kaloo dhan iska tuur waxaad arkaysaa mararka qaarkood dad jikada dhan ay jaam tahay oo maanta dhan wax raadinaya waxaasna waxa weeyaan inayna jikada aysan mararka qaarkood aysan iska kala hufin oo iska kala hagaajin jikadu waxay ku fiican tahay mar walba adaa markaad joogto inaad iska kala hagaajiso ood iska hufto hadda alaabta ayaan dhaqaynaa ayagana ayaan diyaarinaynaa ayaan wixii ka kala tuurayna oo ujeeda wasaqda iyo dheertiga iyo waxaas dul yaala wixii qashimadii iyo bicihii iyo wixii oo dhan baa la isku soo qofo maanta marka guri walbana intaan oo kale way taalaa oo ay ku jirtaa